shirkii hadda dhammaaday ee ka dhacay Mareykan Washington DC ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo 49 madax ee Afrika muxuu ku soo dhammaaday Afrika maxay faa'iiday Mareykanna maxay faa'iideen madaxweyne Biden iyo 49 ka madax ee wada kulmay maxay ka wada hadleen maxay tahay sababta Mareykanka oo la kulmay 49 madax Afrika Mareykan muxuu ka damacsan yahay muxuu ka rabaa ciyaarta meel wajagta salaamantiin oo maxaan faarax waxaan ka faalan doonaa shirkii ka dhacay Washington DC ee saddexda bari socday asbuucan oo soo idlaaday soo gabagaboobay saddexda bari socday maxaa la kala faa'iiday Afrikana maxay faa'iiday Mareykanna muxuu faa'iiday maxayna tahay sababta loo wada kulmeen wada shireen markii ugu horeysay maaha hadda ka hor ee Mareykan iyo Afrika wada kulmeen 2014 ahayd xilligaas madaxweyne Obama ayaa joogay oo Afrika oo la kulmay laakiin waxa xaqiiqa aan taariikhda isdul taagno Afrika waxay calaaqaad saaxiibtinimo iyo dhaqaale iyo siyaasadba maalmahan 20 sano u dambeysay la yeelanaysay bariga waa Shiinaha iyo Ruushka halkaas oo dhaqaale badan horumar badan ee ka socday u dhaxeeyay Shiinaha Ruushka iyo Mareykanka Mareykan walwal uu ka qaba arinkaas ayaa madaxweyne Biden hadda waxa ku kaliftay in uu dib boorka u kiciyo saaxiibtinimadii duqooday ee Afrika iyo Mareykanka 2014 ugu dambeysay ee shiraan 8 sano Afrika iyo Mareykan xiriir meesan yeelanin markaan shiraan Mareykan waxay yabooheen $55 bilyan oo dollar ay u yabooheen Afrika inay siin doonaan lacagtan oo sheegeen in horumarka Afrika ee qayb baaxad weyn ka qayb qaadan doonto saddex sano soo socdo security-ga infrastructure-ka horumarka dhaqaale isbitaalada caafimaadka iyo wax walba $55 bilyan oo dollar ayaa aid iyo grant ah oo isku jirto wadamada Afrika badan loo qaybin doona shirkaas saddexda bari socday ayaa Mareykanka wuxuu u sheegay madaxweyne Biden Afrikaanka madaxweynaha ka soo qayb galay wuxuu u sheegay inay muhiim tahay inay mar wada shaqeeyaan inuu wuxuu ballan qaaday inuu Afrika booqan doono goorna uu booqan doono inkastoo sheegay goorta uu booqan doono madaxweyne Biden Afrika ayaa iyadana kala si fiican u hadashay soo bandhigtay waxay rabto runtii Afrika waxay haystaa kheyraad xad dhaaf ah oo aan caadi ahayn gas oil nickel cobalt iron ore gold iyo waxyaalo lamid ah Afrika macdanta caalamka dhan ayaa ka buuxdo oo raw materials ay haystaa waxay u baahan tahay maalgashitaanka Mareykanka inay hesho shirkadaha weyn Mareykanka inay tagaan Afrika inay maalgashadaan in opportunity ama dhaqaale loo furo ama nafaas la siiyo shacabweynaha Afrika aad u badanaay in ka badan 2 bilyan oo qof ay Afrikaanka gaareen marka Afrika waxay soo bandhigtay waxay haysay Mareykankan wuxuu ballan qaaday in marka calaaqaadkayga hagaajin doono lana tartami doono una sheegay sida wasiirka difaaca oo kale uu sheegay in imbalance relationship ee ka dhaxaysa Afrika iyo Shiinaha iyo Ruushka bal haddaan fiirnina Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanka ganacsiga uu leeyahay Afrika haddaan fiirino sanadkii la soo dhaafay 261 bilyan oo dollar ayay ahayd ganacsiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Afrika halka Mareykanka iyo Afrikana ay kala weedaarsadeen ganacsi 64 bilyan oo dollar Afrika iyo Russia ganacsiga kala weedaarsadeen 2021 ayaan qeexneen maadaama Afrika ee hub badan ka soo galato Ruushka sidoo kale Afrika 40% oo grain-ka ah oo raashinkeeda ah qamadiga waxay ka keensataa Ruushka hub badan oo xadaafa ayay ka gadaa Afrika raqiisa oo badana la diiwaan galin marka Mareykanka wuxuu dareemay in loogu horeeyo saaxiibtinimada iyo dhaqaalaha iyo horumarkaba in Afrika ay wajahayso bariga ay fiirinayso ee ka jeesatay galbeedka wareeg galbeedka bariga ay fiirinayso waxay fiirinaysaa Shiinaha iyo Ruushka ayay saaxiibana noqdeen madaxweynaha Shiineeska iyo madaxweynaha Ruushka mar walba shir ayay la qaataan way la shiraan waxay maalgeliyaan Afrika infrastructure-ka badana Afrika waxaa dhisa Shiinaha aeroboorada isbitaalada caafimaadka meelaha badankood beeraha sidoo kale macdanta badana waxaa qoto Shiinaha oo qaato wadankiisa geysto Afrika marka waxay u baahan tahay maalgashade la dhaqmo oo saaxiiba sidoo kale Ruushka ayaa maalmahan soo fargashta Afrika sida wadamada Chad iyo Mali iyo wadamada security u tababaraa ciidamada u tababaraa shirkado badan oo macdanta ayuu geeyay Suudaan oo ka daabushaa
dahabka ayuu daabushaa waxaa baratay saaxiibtinimadiisa afrika soo badiyey raashinka ayuu ka caawiyaa agri business raashinka beeraha qalabada beeraha lagu soo saaro sidaan sheega 40% galeyda afrika dhan qamadiga aan raali aan ahayn waxay afrika soo qaadataa ruushka mareykan iyo reer galbeedka way hurdeen 20 sano la soo dhaafo waxay ku mashquulsanaayeen kaliya war on terror in lala dagaalamo middle eastiga iyo muslimiinta intay ku mashquulsanaayeen shiinaha ruushka afrika usoo doomareen saaxiibtinimo ay la qaateen sidoo kale afrika waxay ku jeceshahay ruushka iyo shiinaha uma qudbadeeyaan uma sheegaan ma soo farqitaan siyaasadooda arrimaha gudaha way tixgeliyaan madaxweyne walbana madaxweynaha kale ama Putin ha ahaado ama madaxweyne Shipping oo China ha ahaado si fiican ayaa loo soo dhaweeyaa weela shiraan looma qudbadeeyo halka madaxda reer galbeedka Mareykanka ay yiraahdo iyo dhammaan wadamada reer galbeedka Ingiriiska iyo Faransiiska oo wadamo badan Afrika gumeystay human rights oo qudbadeeya gay right homosexual right iyo siyaasadda arrimaha gudaha soo farqishtaa 14 waddan oo Afrikaan kamid ah waxaa lacagta u suubiyo bangiyashooda Faransiya ku yaalaan kheyraadkooda waxaa iska daabushay Ingiriiska iyo Faransiiska marka Afrikaanka marka waxay jecleysteen shiinaha iyo ruushka midaas Biden administration iyo hogaanka Biden way fahmeen waata midaan keentay safarkan degdega ah inuu u waco 49 madax ee Afrika imaadaan oo non balan qaad hadda ka bacdi inay arinta Mareykanka wax ka bedelayaan runtii waa arin lagu farxo gunaanadkii Mareykanka wuxuu u baahan yahay Afrikana waxay u baahan tahay ruushka labada dhinacba way isku baahan yihiin labada qaarad way isku baahan yihiin shirkan 13 information 10 dhamaaday waxa leexu ku soo dhamaaday guul in ka soo dad dhaleecanaya ee jiraan ee leeyihiin Mareykanka madaacad baa shirkan ma sii wadi doonaa ama sidii 2014 xilligii Obama ayuu halkaas ku ekaan doonaa runtii dad badan waxay aaminsan yihiin toqada Mareykan in uu wax rabo in wax ka bedelo qaabkii awal u wajahay Afrika qaab cusub iyo siyaasad cusub oo la soo bacayo inuu wax qabad iyo horumar Afrika uu wax u tarayo oo keeni doono haddii se keenin baa la leeyahay Afrika waxaa loo wareegaya Shiinaha iyo Ruushka iyo Turki iyo wadamo badan reer galbeed gacantooda way ka baxaysaa Afrika waxay haystaa qani waxay ku tahay macdan raw materials badan technology-ga casriga maanta waxyaalaha lagu soo saaro macdanta lagu soo saaro Afrika Congo iyo Zaire iyo Soomaaliya iyo meel walba ay buuxdaa iyo gas iyo oilka marka Afrika way baahan tahay waxay rabtaa maalgashadayaal investors ayay u baahan tahay uma baahna qudbadeen loo qudbadeeyo uma baahna in wax loo sheego waxay u baahan tahay Afrika yaa maalgashanayo yaa saaxiib la noqonayo bari iyo hadda waxaa ku tartamaya galbeed bari oo Shiinaha iyo Ruushka ah iyo galbeed oo reer galbeed Afrika laakiin hadda waxay u janjeertaa oo indheeda fiirinaysaa dhinaca bariga galbeed way ka sii jeesatay maadaama galbeed uu maalmahan iyo sanadooyinka wax u helin laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay shirkan boorka ma uga jafi doonaa calaaqaadka iyo saaxiibtinimada u dhaxayso reer galbeed qaasatan Mareykan iyo Afrika waxaan sugnaaba waa time iyo lacagta inay wax ka tari doonto Afrika saaxiibtinimada Mareykan iyo Afrika waxaan rajaynayaa guul in meesha ka sii qaado runtii Afrika waxay u baahan tahay Mareykanna Afrika waa u baahan yahay waxaana fiican in saaxiibtinimada Mareykan ee Afrika ay tixgeliyaan maadaama China burden uu ku yahay oo lacag deen ah gelinayo iyo waxaan loo joogin oo gelinayo waxaa fiican Afrika inay saaxiib la noqdaan Mareykanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay Minneapolis xaflad caadi ah balaaran oo qurux badan loo soo dhaweeyay shirkaana madaxweynaheena uu ka qayb galay oo Mareykanka uu la fariistay Secretary of State Blinken wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka la fariistay runtii wuxuu ka qayb galay meel kale oo lagu qodbadeynayay madaxweynaha wuxuu soo bandhigay security-ga arrin fiican oo ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkan wuxuu ahaa safar very successful ahaa fikirkiina ka dhibto fikirkan Mareykanka iyo Afrika ma u baahan tahay Mareykan bas Mareykan ma u baahan yahay Afrika saaxiibtinimada Mareykan uu hayo Afrika iyo mid Shiinaha hayo keebaa fiican keebaana guul kusoo hooyan doono maxaan faarax فيديو قال له ذاك دمان أصحابتنا السوشيال ميديا وحيد الله يهي أمانة الله